الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي نبدأ نسوع الشيء اللي نكون نوضح سكين كيانين مرلبات كان مضد الكم مغنين مركة أول رئيسة معان هذا الشيء جيدين هي ملاحظة الدولة ولاياشة سراكيشة سبيل كي عيدان كإنتبا ددوينها غير بنلان وقروا بمان تقصوغان سيدة تيرانين ومسور دويين آذيات بينك مهد علينيا إلهي بانا مهداس له إنان نباد سوسو نقونو إذنكو نبادا يارنكو نبادا waxaad ogtiin halkan waxa ka wada dawladaha u jooga iyo hadeeyeen qaramada midoobay qaybahooda degan iyaguna halkaas liga u yahay waxyaalo kale cusub way jireen hadii ay soo koobo marka ugu horeeya intii aan maqnayn horumarka laga gaaray soo bixi iyo barnaamijki nidaamka xisaabta badnaa oo dalka ka dhacay waan kala soconay warbaahinta aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dadweynaha reer Puntland iyo xukuumadda intaba iyo ciidamada amnigaba sida nabadgelyada Ilaahayna uu dhigay dadkuna isugu soo baxay loona taageersan yahay hay iska jiro mid dhagax iska tuura ama marka qaar iska tala xumaada waa wax iska caadi ah adduunka rabbi ka dhacdaa wuxuu doonayay mid aan la aqoon wax sameeyay laakiin qof badii garashadiisa weeye laakiin waxaan ka hadlayaa waa dadkeena badan iyo tirada iyo sida loo taageeray inay tahay mid aan loo kala harin aad baan ka hambalyeynaya aad baan ka mahad celinaya sida aad agaasimteen 9 May hadii halkan aan ka tagnay 29 May waxaan Nairobi kula kulannay beesha caalamka sida hadda baynii sheegay wakiiladooda degan oo Soomaaliya qaabilsan Nairobi waxaan kaloo la kulannay madax ka mid ah dawladda Kenya oo ugu sareeyay madaxweynuhu bisha June 3 baan la kulannay wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha kala dawliga intaba waxaan la kulannay dabadeed bisha 6 madaxweynaha dawladda federaalka oo isagu markaa safar ka soo noqday Japan markii horena aeroboortka aanu rabnay inaanu ku kulanno hase yeeshee labadii diyaaradood soo raaci lahaa iyo taanu ku nimi aan waqti u dhaxayno aan aeroboortka kulannay dawladda ku ballanay waan kulannay waxaan kaloo la kulannay madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Ahmed baan isagana halkaa kula kulannay xildhibaano badan oo dawladda federaalka reer Puntland badanna waa la kulannay madax kale oo tiro badanna waa la kulannay muddo hadaan meesha joognay bal waxaan isiri bal Australia ciyaalkiina ay jiraan iyadana hadee kamid ah dawladaha Soomaaliya maanta ku tirsan inay wax ka qabtaan halkana safiirkeedu dhawaan inay ku yimid bal iyadana bal cagta Soomaali iyadana Australia tagay meeshaas waxaan kula kulannay dawladdii magaalada Canberra tagay waxaan waqti election way ku jireen laakiin madaxdii halka joogtay waa la kulannay qaybo badan oo kamid ah ama ha ahaatee xukuumadda ama ha ahaadeen hay'adaha kale oo humanitarian ama deeqda bixiyo oo Soomaaliya ku lug leh sida ogtiin safiirka jooga Nairobi Australia wuxuu qaabilsan yahay Soomaaliya iyo Kenya iyo South Sudan saddex wadan buu qaabilsan yahay marka Australia durugsan maanta iyana wax ka soo qayb gashay arrimaha Soomaaliya danaynteeda ka soo qayb gashay gacan ka tahay marka waan aadnay aan la soo kulannay insha Allah kulanka ugu horeeyay weeye gobol dhig iyo waji iyo fayl reer Puntland leeyahay maanta ka furan halkaas oo yaala taasna way inii sheegayeen ka bacdi waxaan soo maray dawladda Imaaraadka magaalada Abu Dhabi madax baan kala kulannay dawladda mashruucan BMBF ciidanka badda oo booliiska madawtiina iyaga taageera wax taageero kale oo bini aadamnimada way fidiyaan iyagana waan kala soo hadalnay arrimahaas aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida diiran ay noo taageeraan xagar la'aanta baan aad uga mahad celinaynaa inay sii kordhiyaan waan jecelahay hadii la haydo Nairobi baan ku soo noqonay si daro waxaan la kulannay dagaalaha ka dhacay meeshaas sida ka warhaysaan bishii June 7 maalintan ka tagnay annagu khamiista ay dagaal baa ka dhacay ilaa bishii 8 magaalada Kismaayo dabeedna intaan soo noqonay 28 iyo 29 iyo 30 June dagaal ka dhacay
taas waxay la tahay waa laga wada dheregsan yahay oo dhaawacoodii waa ka yaalla magaalada gaalkacyo oo Puntland hadda yaallo aad iyo aad baa loogu soo dhaweeyey aad baan uga mahad celinayaa shacabka reer Puntland oo gaalkacyo degan sida diiran ay u soo dhaweeyeen dhaawacaas u daryeelayaan dagaaladaasu ma ahayn wax la filaayay meesha maamul baa ka dhismay maamulkaasna madax baa lagu doortay waxna waa dhimanaayeen laakiin gacan baa ku jirtay gacan laga wada warhayo baa ku jirtay aad iyo aad baan uga xunnahay intii ku dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu muxuu ahaaday jannadii geeyo oo aan iyagu dembi lahayn intii markaas ay ka dhinteenna tacsi baan uga diraynaa waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada halkaa isku haya oo aan garanayno siday yihiin hadda tafaasiil badan ugu aanan ka bixinayn maamulkaas dad diidan oo gacani ku jirto inay iyana ka waantoomaan meeshiina ay ka dhacdo dib u heshiisiin maamulkaas dhismihiisana la wada taageero beesha caalamkuna sidayaan ognahay way taageersan tahay xukuumadda federaalkana waxaan ka rajaynaynaa iyana inay mowqifkoodii ka soo noqoto adkaa oo ay taageerto haddii kale meeshu iyo meel kale toonna nabad lagama fili karo wixii wanaaga oo la sameeyo haddaan la taageerin intaa ka bacdi tacsidaas iyo dib u heshiisinta aan ugu baaqayno waxaan aad uga mahad celinaynaa ciidanka amisom oo meeshaas jooga sida ay dhexdhexaadnimada ah oo ay uga qayb qaateen oo ayan dhinacna u taageerin meelihii muhiimka oo halboolayaasha dalkana oo kismaayona ay gacanta ku hayeen waad ogtihiinoo meel al-shabaab haystay meeshii ugu muhiimsanayd oo laga qabtay waxay noqotay gobolkaas baasta jubbada hoose weliba gaar ahaan magaalada kismaayo oo ay ahayd dekada iyagu intifaacsadaan xamar weligeedba waa laysku haystay oo dowladdu waa ka shaqayn jireen maamuladii hore iyo tan welina wax ka tuurtuuraan way jirtaan laakiin meesha ay ku hoogeen waa meesha kismaayo ammaan baan u soo jeedinaynaa ciidanka amisom halkaa jooga oo ka socda dowladaha Kenya iyo dowladda Sierra Leone ka socda iyagana aad baan u ammaanaynaa sida dhexdhexaadna wala wada eedeynayay haddii nin laga adkaaday waxay la tahay nina dhegeysan may nacnacdiisa dagaalooga muxuu ahaaday wuxuu doona isaga hadlaayay miyuu marna oran lahaa in laga adkaado laakiin waxaan rajaynaynaa in sida ay tahay loo qaato sidaasayna tahay waxaan u yeeraynaa oo aan jecel lahay in dowladaha iyo hay-adaha United Nationska iyo kuwa kale oo international NGO-ga baahi badan baa ka jira meesha dhaawac badan baa jira oo aan la qaadi karin inay daaweyn iyo daawo iyo dhakhtarro intaba geeyaan iyo nafaqayn iyo raashin haddii meel dagaal ka dhaco ammaanku xumaado xoogaa waxaa yimaada ganacsiga iyo waa kala go-aano maciishadda xumaata inay si degdega wax u geeyaan baan iyagana ugu yeeraynaa halkaa si ay ugu gargaaraan dadka halkaa dhibaatada ku gaadhay oo dhaawac gaaro ama sidoo kale godoon ugu noqdeen guryahooda aad baan uga mahad celinaynaa hadday gargaar gaarsiiyaan waana jecelahay waxaan tacsi u dirayaa dadka reer Puntland sidaan hore raadiyaha uga soo sheegay idaacadaha boqor Cabdullaahi boqor Muuse geeridii oo ku guday wadada dalka Finland dhawaana meydkiisa halka la keenayo waxaan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo heladii iyo familigii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dadka reer Puntland dhammaantoodba aad iyo aad baan uga tiiraansannahay geeridaas ku timid kullay nin kasta aakhiro u socdaa maalin walba intaasaa dhimanaysa la sheegayay xalay hataa dhowr qof oo dhintay baan loo sheegay oo reer Puntland qaarna xamar ku dhinteen laba nin baa xalal la ii sheegay xamar ku dhintay oo nin wasiir ahaan jiray mar kaba Soomaali Nairobi buu ku dhintay iyo ninkii la oran jiray Xasan oo Ciise oo injineerka ahaa oo petroleumka ahaa oo meeshaan waagid wax laga baarayay joogay labadaba geeridooda shalay xalay baa la ii sheegay ilaahay ha u naxariisto eeladoodina ilaahay ha ka samirsiiyo iyagana jannada Allah ha geeyo intaas ka bacdi waxaan maqlay intii aan maqnaa hadda dhawaan yimi wafti ka socday dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo Itoobiya anagoo tan siyaara ku tagnay hadda dadaad u soo dhawaysan waa ku mahadsantihiin abaalna waa noogu lahaayeen derisna waa nahay walaalana waa nahay si walba inaan xurmayno waa isku leenahay iyagana waa arki doonaa taasida ay nagala soo qayb galayaan iyo wixii heshiisyadii aanu kala gaaray meel marinteeda inaan ka wada hadalno iyagana aad baan u soo dhaweynaa ziyaaradooda ilaahay ku guuleeyo waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan
ku noqdo go-aankii aan gaaranay oo ahaa waagii doorashada halkaan lagu sameeyay 2019 bishii January in doorashooyinka soo socda ay ku dhici doonaan nidaamka xisaabta badan oo si fiican u socdo dadkeena ay u hoggaansameen hadda maanta dadkii banaanka aan ku arkay ay ahayn dad ku soo bannaan baxay maanta qoladii lahayd bannaan soo baxa iyo dabaaldega inay dadka u tusaan awoodooda halkaa maanta aan ku arkayay iyo kuwii ka horreeyayba ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida hadda ay nabad ugu dhamaatay inay nabad ugu dhamaato inkastoo gaalkacyo weli laga sheegayo qaswadayaal inay dhiig ay rideen la sheegayo bal waa ogaan doonaa inta tiradu leegtahay iyo cidda mas'uulka ah waa ogaan doonaa nabadgelyadu maaha wax iyada lagu nool yahay adaa ku nool wax nabadgelyo dhaamaa ma jiraan maduhu maanta waqtiga maanta la maraayo meel walba qalaaqal baa ka socda waad aragteen wadamadii aynu xiriirka lahaan jiray masar waxaa ka socda Syria ka socda waxaa Afrika meelo badan ka socda Nigeria iyo Mali iyo ka socda kulley inaga talagalkeenu wuxuu ahaa in dawladda Soomaaliyeed ay dhalato oo federaal ah oo ka baxda nidaamka ku meel gaarka ah dastuurkana ku dhaqanta iyadana waad ka warhaysaan dastuurkii maanta gacan laguma hayo waxyaalo kale oo shirarana waa la sheegayay dhawaana arrintaas waxaa u tagay wafdi ka socda baarlamaanka Puntland xiritaankii shirkii baarlamaankii dawladda federaalka ah ka qayb galay warkooda waa maqasheen haddana waa joogaan inkastoo gudoomiye la yiri gaalkacyo ku haray waa la iswaraysan doonaa waa u warrami doonaa iyana waxay warka soo arkeen waa iska warhaynaa annana waa u warrami doonaa labada gole dhammaantoodba dabadeedna bal xaaladaha Soomaaliya si maanta yihiin daraasad baa laga samayn doonaa dadweynaha waa maqashiin doonaa haddii ilahay idmo waqti adag baa lagu jiraa waxyaalo badan oo sidii la rabay aan ahayn waa jiraan oo ka mid tahay dastuurkii runta ahaa ee dalka laga rabay inuusan meeshii maanta oolin wax kala yaalin cid walbana waa ka warhaysaa maanta bal waa laga tashan doonaa haddii alla idmo waana isugu imaan doonaa laakiin waxaan dadkeena ugu baaqayaa nabadgelyo iyo midnimo maanta oo saasaan laga gudbaa ilaahayna hayna ku dhaafiyo waqtiyada adag nabadgelyo iyo midnimo sidaasaan ilaahay rajaynaynaa dadkeenana aan ka dadaalkooda aan ka malaynaynaa waxaan mahad gaar u soo celinayaa ciidamadeena qalabka sida oo dadaalka weyn ugu jira sidii nabadgelyada u sugi lahaayeen maanta hadda la sheegayay buurtii halkaas ahayd oo ku dhundhuman jireen kuwa maartay baabay oo qaybaha hadda ka bixi ka harharay oo ma qanacsan kala tagi waayeen madaxdoodu waa talloog yahay qaarna ay isa soo dhiibeen ama la qabtay qaarna dalaayay qaarna meel ku gabadaan waayay marka ninka maanta weli u dagaalamayo oo hadba meel istaagaya waxaan haysanaa inuu yahay qof aan garaar lahayn waxaan sidaan hore mar badan u sheegay waxaan jeclahay inaan u sheego dhalinyarada yaryar oo beenta loo sheegay oo jihaad aan jirin lagu lugooyay oo dhiigoodii iyo dhiigii dadkooda la isku daadinayo inay isaga tagaan oo ay soo dhiibaan anagu cafis baan u fududnaa ninkaan dambi lahayn oo aan ahayn rag la yaqaan oo iyagu dhiigi cabyada ah waxaas maanta aan ciidan ku masaabixi karin waxaan rajaynayaa inay iyaguna taa ka faa'iidaystaan oo ay soo afjarmaan wixii maanta Soomaaliya ka dhacay hadda ka hor sidaasaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahayna nabad ayna ku waariyo